hankii qaranka rumoobay hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada qaranka Soomaaliland wuxuu ku talaabsaday horumar ballaaran gaar ahaan dhinaca khayraadka kaas oo alle uu ku manaystay dhulkiisa muwaadin waxa la gaaray xilligii Soomaaliland ay la soo bixi lahayd kaydka shidaal ee ku duugan dhulkeeda waxa la gaaray xilligii laga shaqayn lahaa horumarka dhanka dhaqaalaha ee aynu ku higsanayno wadamada horumaray iyo kuwa aynu ictiraafka ka sugaynaba taas waxa inoo sahlaysa sahanka shidaal baaritaan ee aad maqasheen kaas oo ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland muwaadin dhulka waxa ku duugan khayraad aad u badan kaas oo kamid yihiin macdanta iyo baatroolku si aan hadaba wax uga ogaano sahanka baatrool ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa muhiim ah inaan helno xog inoo iftiiminaysa marxaladihii uu soo maray sahanka dhuleed sida aadin badan badhigihiina ku maqasheen waxa wadanka ka socda sahan geologiyeed ama baaritaan shidaal kaas oo soo maray marxalado kala duwan taariikh ahaan hadaan dib ugu laabano wuxuu sahankani soo bilaabmay dhamaadkii dagaalkii labaad ee adduunka bilowgii kontomeediyadii ayaa wadamada Talyaaniga iyo Mareykanku sameeyeen sahan geologiyeed kaas oo ku aadanaa dhamaadkii 1950kii shirkadaha Sinclair Conoco iyo Shell ayaa kamid ahaa shirkadihii faraha badnaa ee sahanka sameeyay iyaga oo qoday ceelal badan oo tijaabo ah gaar ahaan gobolada Awdal Saaxil Saraar Sool iyo Sanaag tan iyo waagii uu Ingiriisku xukumayay Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jiray sahamo shidaal oo ay shirkado badan sameeyeen ilaa ay ka gaadheen inay qodaan ceelal badan oo tijaabo ah sahanka geologiyeed ee laga sameeyay Soomaaliland wuxuu ina tusinayaa calaamado wanaagsan oo iftiiminaya in shidaal ku jiro meelaha badan ee laga sameeyay sahanka ceelashii tijaabada ahaa ee la qoday intii sahanku socday waxa laga gaadhay waxoogaa horumara tusaale fiican waxa uu ah ceelka loo yaqaano dhagax shabeel 1 oo duleedka tuulada Burcakibir ee hoos tagta degmada Berbera ee gobolka Saaxil waxa laga soo saaray ceelkaas 32 foosto ilaa 1959kii shidaalkaas oo tayadiisu ahaa shidaalka adduunka ugu wanaagsan maadaama oo xilliga la joogay aanay jirin tiknoolajiyada casriga ah ee imika la isticmaalo waxa adkaatay in laga goon gaaro kaydka ama buuda shidaalku ku jira ee dhulka hoostiisa sahanka hadda socda ayaa laga sameeyay dhul aad u baaxad weyn oo u dhaxeeya Baligubadle Oodweyne ilaa Saraar kaas oo shirkadda Genel Energy ay gacanta ku hayso waxaana la sahamiyay dhul cabirkiisu dhan yahay 3500 oo kiiloomitir waxaana bartamaha sanadka 2019 laga qodayaa ceelashii ugu horeeyay tan iyo intii ay jirtay Jamhuuriyadda Soomaaliland waana talaabadii ugu dambeysay ee lagu xaqiijinayay tuhunka ah in shidaal ku jiro dhulka la sahamiyay sahankani oo noqday sahankii ugu ballaadhnaa ee ka socday qaaradda Afrika waqtigan la joogo dhanka kale shirkadda Ragas ayaa gobolka Saaxil ka wada sahankan la mid ah dhulka lagu tuhmayo shidaalka Soomaaliland waxa loo qaybiyay baloogyo kuwaas oo intooda badan shirkado maalgelineed laga kireeyay si ay ugu sahamiyaan ugana soo saaraan shidaalka ku jira ee lagu tuhmayo hadaba si aan wax uga ogaano muxuu yahay baatroolku aynu isdul taagno waxoogaa hordhaca baatroolku ama shidaal waa dareere dabiici ah oo holce ah kaas oo laga helo dhulka hoostiisa midabkiisuna yahay huruudi ilaa madow ahna isku dhaf noole ka soo jeeda oo ka kooban atomiyo hydrogen iyo carbon ah sidoo ku samaysma kayd shidaal si uu u samaysmo kayd shidaal oo ama petroleum system waa oo dhameystiran waxa loo baahan yahay in la helo waxyaabahan soo socda dhagax shidaal waa dhagxaanta uu ka abuurmo shidaalku waxa loogu yeedhaa dhagax lakabeed sedimentary rock kaas oo ka samaysan jajab yar oo ku degay meel biyo fadhiisin ah oo sagxadda badda ah ama bariga ah dhagxaantani waxa ay ka samaysan yihiin jajab macdan ah oo ay ku dhex jiraan maado hadhaan noole xayawaan ama dhir ah marka jajabkan hadhaaga noole ku jira aasmaan waxa kordhaya cadaadiska iyo heerkulka waxayna isku bedelayaan maadada loo yaqaan kerosene taas oo marka ay hesho cadaadis ama heerkul ku filan soo dhalinaysa shidaal samaysanka shidaalka dhammaan gaasta iyo saliidda maanta la isticmaalo waxa ay ka kooban yihiin ama ka samaysan yihiin noolayaal yar oo dhir iyo xayawaanba leh kuwaas oo ku noolaa badda malaayiin sano ka hor noolayaashaas yaryari markii ay dhintaan waxa ay ku daadegaan sagxadda badda halkaas oo ay dusha ka aasayaan walxa ka kooban jajab yar oo dhagxaan ahi hadhaaga noolayaashaasi waxa ay ku jiraan deegaan aan lahayn oxygen sababta oo ah fogaanshaha iyo socod la'aanta biyaha sagxadda badda arintani waxay sababaysaa inay ilaashamaan iskuna bedelaan maadada loo yaqaan kerosene cadaadiska iyo heerkulka awgeed marka kerosene hesho cadaadiska iyo heerkul ku filan waxay awood u leedahay inay sii deyso saliid ama gaas dabiici ah duxitaanka waxa u sabab ah aasanka isku dhafanka iyo kala duwanaanshaha cadaadiska
cadaadiska iyo dhagxaanta shidaalka. Dhagax kaydiyaha duxitaanka waa hanaanka ay saliidda iyo gaastu kaga soo baxayso dhagax shidaalka. Duxitaanka waxaa u sabab ah aasanka isku dhafanka iyo kala duwanaanshaha cadaadiska ee dhagxaanta shidaalka iyo dhagax kaydiyaha. Waxaa jira laba nooc oo duxitaan ah, waxayna kala yihiin: duxitaanka hore waa in shidaalku ka soo baxo dhagax shidaalka. Duxitaanka dambe waa hanaanka uu shidaalku ku dhex soconayo dhagax leh awood kaydin iyo habid. Shidaalku wuxuu marayaa daloolada yaryar ee ilma aragtiga ah ee ay leeyihiin dhagxaanta shidaalku ama dhagxaanta kaydisa shidaalku. Waxay leeyihiin awood kaydin iyo habid ah, taas oo macnaheedu yahay inay leeyihiin daloolo yaryar oo u dhaxeeya jajabka macdanta ee dhagxaantaas. dalooladaas oo kaydin kara shidaalka isla markaana uu shidaalku isaga dhex gudbi karo. saliidda iyo gaastu marka ay si dabiici ah ugu soo baxaan dhagxaanta shidaalka, waxay u soo hayaamayaan dhagxaanta ay jaarka yihiin ee kaydiyayaasha shidaalka. dhagxaanta kaydiyayaasha shidaalku waxaa ka buuxa biyo dhanaan. intaanu shidaalku soo gelin, saliidda iyo gaastu way dul marayaan biyaha marka ay soo galaan dhagax kaydiyaha, maadaama oo labadooduba cufnaantooda ay ka yar tahay ta biyaha. shidaalku wuu dhex soconayaa dhagax kaydiyaha ilaa uu la kulmayo caqabad, taas oo ah dhagax aabudaha. dhagax aabude waa dhagxaan iniinyo yaryar leh oo aanay suurtageli karin in shidaalku ka dhex bixi karo ama u dhaafi karo meelo kale. hanaanka xayiraada saliidda iyo gaasta ku jirta dhagax kaydiyaha kor ayay usii soconayaan ilaa ay joojinayaan hanaan xayirid ama dhagax aabude. hanaanka samaysanka shidaalku waa mid gaabis ah, waqtiga uu qaadanayana waa malaayiin sano. marxaladaha sahaminta shidaalka. marxalada koowaad waxaa weeye daraasaynta lakabyada sare ee oogada dhulka. marxaladan waa marxalad ka mid ah marxaladaha sahaminta shidaalka. waxaa la sameeyaa in khubaro ku takhasustay barashada culuumta dhulka ama daraasayn ku sameeyaan lakabyada dhagxaanta ee ka muuqda oogada sare ee dhulka, taas oo ay uga gol leeyihiin in ay si wacan u darsaan ama u fahmaan dhagxaantaasi macdanta ay ka samaysan yihiin, qaabka ay u samaysmeen iyo da'da ay dhagxaantaasi jirtayba. kadib marka intaas la aqoonsado, waxay ka turjumaysaa lakabyada hoose ee dhulka hoostiisa ku jira. baaritaanka caraseesha ama oil seepage-ka. daraasaynta duxitaanka shidaalka. shidaal dusha lagu arkay oo dhulka ka soo duxay. shidaalka waa dabeecadaha dabiiciga ah ee uu sameeyo dareeraha hydrogen-ku, kaas oo ka soo baxa dhulka hoostiisa. caraseel waa shidaal lagu arkay oogada sare ee dhulka, kaas oo soo duxay. sababta duxitaanka ayaa ah jajabka iyo dilaaca ku yimaada lakabyada kala sarreeya. dilaaca soo gaadha kaydka shidaalka, isaga oo soo raacaya dilaaca ayuu dusha uga soo baxaa dhulka isagoo noqda caraseel. daraasaynta oogada sare ee dhulka markii lagu arkay goobo badan oo ka mid a Somaliland ayaa lagu qancay ama loo fikir guuray loo samayn lahaa sahan shidaal. marxalada labaad ee sahanka ayaa ah diyaarad casriya oo qaadaysa sawir. kadib marka la daraaseeyo lakabyada sare ee ka muuqda oogada sare ee dhulka, waxaa loo gudbaa marxalada labaad ee sahaminta shidaalka, taas oo ah in sawir laga qaado lakabyada sare ee dhulka iyadoo la adeegsanayo satellite-ka, waxaana sawirka qaadaya diyaarad casri ah. arrintaas oo loogu talagalay in lagu ogaado guud ahaan qaab samaysanka lakabyada sare ee dhulka, isla markaana isbarbardhig lagu sameynayo sawirada ay diyaaraddu qaaday iyo sawirada laga qaaday dhulka ku dhow. tani waxay xooga saaraysaa inay muujiso godanada uu leeyahay dhulkeennu, kaas oo ah badanaaba meelaha shidaalka laga baadho. godanada la soo saaray markii la fasiray natiijadii ka soo baxday diyaaradii sawirka qaaday ayaa kala ahaa godanka Oodweyne, godanka Gubanta iyo godanka Nugaaleyd. qalabka ay diyaaradani wax ku sawiraysay ayaa ahaa qalab hab casriya u sawiraya, kaas oo loo yaqaano full tensional gravity. diyaaradan oo ku duulaysa joog hoose ayaa sawir ka qaaday dhul cabirkiisu dhan yahay 17,000 kilomitir. waxaa kale oo sahanka diyaaradani samaysay ka soo baxay qorsheynta marxalada sahamineed ee ku xigta, taas oo loo yaqaano 2D seismic iyo banaynta laymanka ay gawadhidu marayso. marxalada saddexaad ee sahaminta shidaalka ayaa ah dhulka gariirinta ama 2D seismic. marxaladan waa marxalada ugu hawsha badan, waana haatan ka socota Jamhuuriyadda Somaliland. banaynta laymanka sahanka ee ka soo baxay natiijadii diyaaradda waxaa ku xiga isticmaalka gawadhida waaweyn ee loo yaqaano vibrators iyo sameecadaha dhulka hoostiisa lagu aaso, kuwaas oo kaydinaya xogta. laymanka 2D seismic waxaa lagu aasaa sameecado jooga la aasana u dhan yahay dhudhun, waxayna isku jiraan masaafo dhan 12.5 mitir labadii sameecadoodba. waxaa soo mara gawadhida waaweyn ayagoo kaga gariirinaya dhulka
oogada sare ee dhulka kuna garaacaya awood dhan 60 newton gariiritaankaasi wuxuu jabaq tamareed u diraa lakabyada kala sareeya ee dhulka tamarta loo diray lakabyadaasi waxay u soo celinayaan sida ay u kala cufnaan badan yihiin tamartaas soo noqotay ama jabaqdaas soo noqotay waxa duuba sameecadaha la aasay sawirkii ay duubeen sameecadahaasi waa laga dejiyaa waxaana lagu fasiraa qalab loogu talagalay xaaladda afraad ee shidaalka ama sahaminta shidaalka ayaa ah qodista ceelasha tijaabada ah dib marka la soo fasiro xogta la qaaday waxa la soo xadidaa dhowr goobood oo kamid ah masaafadii baaxadda weyneed ee laga qaaday xogta si loo ogaado kaydka rasmiga ah halka uu yahay marka goobta la soo xusho bahda culumta dhulku waxay baaraan goobta rasmiga ah ee laga qodayo si ay u go'aamiyaan xuduudaha qodaalka waxay kaloo ku sameeyeen deegaanka daraasad haddii loo baahdo shirkadda qaadanaysa qandaraaska qodaalka ayaa marka ay dhamaysay heshiiska qandaraaska qodaalka ayay bilowdaa goobta saxda ah ee laga qodayo ceelka shidaalka shaqaalaha qodaalku waxay u diyaar garoobayaan diyaarinta nadiifinta iyo isku simida goobta qodaalka helidda ilaha dabiiciga ah ee biyaha kuwaas oo loo isticmaalo qodaalka diyaarinta dhammaan agabka qodaalka marka goobta qodaalka la diyaariyo shaqaalaha ku howlan qodaalka waxay diyaarinayaan qodista dhowr goobood si ay u xadidaan kaydka weyn ee shidaalka marka lagu kalsoonaado kaydka waxa la bilaabaa qodista ceelka si xirfad iyo aqoon ku dheehan tahay ayagoo adeegsanaya agab iyo tiknoolajiyad casri ah kadib marka la keeno riiga iyo agabka kale ee qodista loo isticmaalayo wuxuu hawlgalka qodista shidaalku ka bilaabmaa qodista oogada sare ee dhulka iyadoo laga qodayo god qaadanaya waqti dheer si arinta qodaalku u suurto gasho waxa loo isticmaalaa agab loo yaqaano tuumbada birta ah ee qodaalka ama xariga qodaalka qiyaasta lagu jaangooynayo qodaalku wuxuu ku kala duwan yahay dhexroorka tuumbada birta ah ee loo isticmaalayo qodaalka taas oo u dhaxaysa 5 ilaa 50 inchi qayb kasta oo qodaalku gaadho tuumbada birta ah ee loo isticmaalayo qodaalka ayaa ka yaraata dhexda daloolka ee godka taas oo badanaa loo isticmaalo sibid kaas oo lagu buuxinayo farqiga soo baxay sibdintu waa mid loo isticmaalo in lagu buuxiyo qaab dhismeedka ceelgodeedka la qodayo iyo in lagu yareeyo aagaga la kabdhagaxeedyada uu ka imanayo cadaadiska sare kaas oo sababi kara inuu yimaado qarax haddii la ogolaado in cadaadiskaasi yimaado nidaamka qodista ayaa ah mid aan la yaab ku lahayn isticmaalka birta tuumbada qodaalka oo ah mid la isugu daro walxaha ka kooban dareere adke iyo walxo ka samaysan kiimikooyin sida maadada loo yaqaano bontanite taas oo lagu walaaqo dareeraha waxayna ka caawinaysaa birta qodaalka inay qaboojiso iyo inay dibadda u soo saarto dhammaan dhagxaanta burburtay markay shaqaalaha qodaalku gaadhaan qotada ugu dheer ee ugu fiican waxaa laga soo saaraa qalabka qodaalka iyadoo la sameynayo tijaabooyin dhowr ah kuwaas oo ay ka mid yihiin duubidda iyo diiwaangelinta macluumaadka ceelka si loo ogaado qiyaasta iyo qaababka lakabyada dhagxaanta tijaabinta qaabka qodaalka si loo cabiro cadaadiska kaydka shidaalka ee la gaadhay shaybaaritaanka muunadaha ceelka laga soo qaaday si loo ogaado dabeecadaha kaydka shidaalku siduu u bedelay bulshooyinka caalamka muwaadin shidaalku waa kheyraad Allah ku abuuray dhulka hoostiisa waxaana ka faa'iideystay wadamada caalamka intooda badan kuwaas oo laga helay shidaal wadamada khaliijka ayaa ah kuwa sida fiican uga faa'iideystay iyaga oo waayadii hore ahaan jiray kuwa la daalaadhacaya nolosha caadiga ah sanadihii hore dad aad u reer baadiye ah ayay ahaayeen oo dhaqan jiray waxooga geela iyagoo beeran jiray timir muddo ku beegan 60meeyadii ayaa shirkado ajnabi ah ay sahan ka sameeyeen wadamada khaliijka muddo kadibna waxay u soo saareen shidaalka kaas oo heerka maanta ay marayaan gaarsiiyay tusaale hadaynu soo qaadano imaaraadka carabtu wuxuu shidaalka helay 1970kii maantana waa wada garanaya heerka uu marayo waa waqti dhow xilligii ay heleen shidaalka waxayna gaadheen in imaaraadku uu ka mid noqdo wadamada ugu dhaqaalaha badan adduunka sidoo kale imaaraadku wuxuu noqday xarunta ganacsiga adduunka dhammaan dadka imaaraatiyiintuna waa dad ku nool nolosha ugu sareysa haddaba haddii aynu la soo baxno shidaalka lagu tuhmayo dhulka Soomaaliland muwaadin waxaynu gaadhaynaa guulo horumar gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha hiigsiga himilada dalkeena hiigsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtiisa haysta tirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hoobanta hawrtay ilaaca cirka ku hooray